dhoosadii yeerto inaa ka hadla ma jeceshiin no ma samayn kari saaxiibkay xanuunkiisa inaa youtube lasoo fadhiisto views ma ka raadin kari We the best. Another one. Titade. Always remember, it's lion order. Lion! Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aniga Maxamed Xasan YouTube ka daawanaysan waa another one Titade. meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaalkayga iyo maqalkayga idin soo gaari doona niyad samee kalgacal ugu soo dhawaad waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoda aan soo geliyo fadlan haddii aad ku cusub tahay ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad ama aad subscribe laan daawan jirtin waxaan kaa codsanayaa daawad inaad subscribe saarto channelka gambaleelkana furto si aad anigii aragto fiidiyogana like saar laagta weliba waxay naga caawinaysaa channelka in uu meelo fog gaaro si ay noogu soo biiraan dad sidaada oo kale u wanaagsan waad ku mahadsantihiin la jiristiina iyo la joogistiina sida caadada iyo dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo Muniir Aqaa oo saakay aad u xanaaqsan ayaa channelkiisa wuxuu soo dhigay video runtii galka ayuu seefta kala baxay maxaa yeelay Muniir waa la dhibaateeyay waa la wareeriyay maskaxda laga cuno odayga sababtu waxay tahay horta Soomaalida markay rabaan inay hore u socdaan waxa ku dhaga laba qofood oo macnaha laga yaabo in ay yihiin laba qof oo wicila ah ama dad dabada laga dhalay runtii waxa arkaysaa 100 ama 200 ama 500 oo qof ayaa waxay ku soo leedahay waa ku wadanaa keep going waa ku taageeraa waa ku jeclahay ilaahay dartiisan ku taageeraa walaalkay haniyad jabin waad gaaraysaa hore u soco waa 500 oo qof laba baaster ama labo laga yaabo wicilaa oo dabada laga dhalay ayaa waxay ku soo qorayaan doqon baa tahay hebel ka leexo saas marka labadii doqon ayaa waxa u iloobaysaa 500 ee ku soo amaantay oo ku tiri hore u soco oo waa ku taageernaa ilaahay dartiisan ku jecelnahay run sheegaa tahay nin adagaa tahay nin bir aad tahay duliye saraa tahay madaxa tahay waxaad ku iloobay laba baaster oo laga yaabo inaysan cashaynin laga yaabo inaysan quraacanin oo cuqdad dilootay oo derbi gaajant la fadhiyo message ku soo qoreen ku dheen doqon tahay meesha ka kac doqona waxaad u iloobay 500 oo qof ee ku soo amaantay marka Muniir dadka ku taageeraade oo badan yihiin ku iloow dadkaasi two baaster waxa lagu iloobaa 500 oo qof ee ku soo amaantay ani badanaa ma tixgeliyo laba baaster oo xumaan ii soo qorto waxa mar walba madaxa saartaa oo aan respect gareeyaa 20,000 ama 20 qof ama 5 qof ee aniga isoo amaanaysa kuwaasa aan u hayaa respect kuwaasaan jeclaa kuwaasa walaalay kuwaasa Soomaalinimo naga dhaxaysa two fucking aniga mu u jabo mu ku walwalo dhig jalaq uma siiyo igama xanaajiyaan sababtoo ay waxaan haystaa more than 200 of 60 of 70 of 20 of 30 of 15 oo waxaan haystaa aniga i jecel oo i taageeraysa marka oo Aasiya Europe America kala joogaan marka two fucking oo dabada laga dhalay inaa u jixin jixtid ma ahayn marka warka idinku dheereeyo maleena Muniir aan isla daawano sab ma ahan inaa youtube ka soo fadhiisto aa isweysiiyo aad liibaan xanuunsanay muwaalintihin qof saaxiibkay xanuunsan sidee inaa youtube imaado baqbaq ugu dhaca qasab miya inaa ku ogeysiiyo inaa la hadlo qasab ma aha aad iyo aad macnaha Muniir waxa lagu haystaa liicata xanuunsaday oo xanuunkan waa iska normal de umadana xanuunsatay wax oo maanta la buunbuuniyo gooni aan uma arko ninkan waxa lagu haystaa saaxiibka oo isku kiin bartay oo isla wada socoteen intaas aa wada jirteen wada joogteen baa xanuunsaday video dad badan baa u soo duubay oo u duceynayay Muniir waxa ugu soo hadli weysay asigana wuxuu taagan yahay anigu nin saaxiibkay oo xanuunsaday oo jiran miyaan views ku raadiyaa macnaha qof dadka bini'aadinka isku damiir ma ahan isku diirna ma ahan runtii waa la kala damqasho badan yahay qof walaalka oo xanuunsan inaad camera soo qaadato oo aad soo fariisato aad views ku raadsato oo aad soo saarato xayeysiin lacag ka samayso ma aan mid sax ah arintaas waan ku amaanaa Muniir waxaan leeyahay keep going brother adaa saxsan two fucking ha u jabin hanu u jixin horta war Allah wala xariiri liibaan
familkayga dhan way waceen waa la hadalnay ani waa la hadlay khaasatan waxyaaba ah isticmaal oo waxaa jira isku uumiyey shalaydaana ugu dambeysay aan wada hadlay oo wuxuu ugu dhamaamoyna ila joogo dee muhiimaddu waa intaas qofka walaalkaa ah inaad ka war hayso oo la xiriirto sababtoo ah cudurkan layskuma tago haddii uu qofka xanuunsan yahay layskuma tago oo lama booqdo maxaa yeele waa la karantiilaa iridaa loo dhigaa wax kastuu u baahan yahay waxaa loo sheegaa iridii in loo dhiga alaabtiisa asigaa tartiib uga qaadanaya ma ahan in hoosta laga galo sababtoo ah waa cudur sahal le isaga qaadi karo haddana xanuun badan ma ahan wax sahlan cudurkaasi sababta waxay tahay waa arkaysiin intaasoo kun ama intaasoo milyan ayaa u dhimatay marka qofka xanuunsan oo aad ku og tahay hoosta ha ka galin sideedaba intuu barnaamijkan xitaa socdo mar walbo under half meter afstand macnaha 1 mitir iyo bar qofka ka fogow oo hoosta ha ka galin gacanta ha ka salaamin haddii aadan guri wada jooginoo ninii naagtiisa isku ahayn inta kale iska ilaalin aad dhehaysiin ma ihi wixii saxan iyo wixii qaldanna ma ii sheegaysid waxaa la hadlaa qofka xun oo mar walba xumaatada ila daba taagan oo ani inuu sharafteyda iyo bahdil igu sameeyo isku daya qofkaasoo kale waa iska dhicinaa sabskribaa sheegay weligaa hadaawan aad iyo aad macnaha ninkan wuxuu leeyahay aniga muniiraan ahay nin waalan oo dhar xiro dhehaysiinna ma ihi oo nin akhyaar ah oo dharkiisii wato oo labisan oo idinsoo hor istaaga waqti idinku bixiya oo wax idinsoo tabiya wixii ugu dambeeyey reaction ka bixiya oo idin sheega waxyaalo challenge idin keena marka nin sax iyo qalad kala yaqaana ah qofka markuu qaangaar yahay sax iyo qalad waa uu kala yaqaanaa laakiin waanu way iska jirtaa marmarka qaar qofka bini'aadinka waxbaa ka khaldooma haddii wax ka khaldoomaan qofka waa loo sheegi karaa oo waa la sixi karaa taas dood kama taagna laakiin wuxuu leeyahay dadka cadowtinimadeeda caadaystay iyo inay aniga sharafkeyga iyo sumcadeeda iyo karaamadeyda hoos u dhac u geystaan dee diintaa qabto qofkii adiga taargad gooniya kuga ah inaa iska dhiciso oo iska qabato oo weliba wax iska dhahdo soomaalidana two fucking waxay mar walbo u leeyihiin xaq in layska celiyo oo micnaha layska qabto haddaad iska qabanin macnaha waa iska kaa daba dhiganaa soomaalidu waxaa la yidhi ila cabsata maleya kor naxay leedahay maa la yidhi markaad usha ku garaacdo unbay naxaan hadlaan ama dan ee kaa soo yeeshtaan haddii dantooda aad fulin weyso waxaa lagugu hanjabaa sabskribeka kaa ceshana hadda cesha sabskribeka hadda celi hadda right now tag aan subscribe haddii jannada aad ogeysa aa aragnay okay macnaha wuxuu taagan yahay qofka markii aad subscribe kusoo wacaa uu yidhi danihiisa hadduu kaa waayo wuxuu ku leeyahay subscribekan aan subscribean ku dhahay ama subscribekan kaala laabanaa wuxuu taagan yahay hadda maaragta intaad meesha tagtid subscribekaaga la laabo oo gurigaaga geyso oo madaxaaga maaragtay saaro haddaad janno i geenaysid iyo haddii kale waa arkay subscribeka soomaalida xitaa waa gumeysi qofaa cuskaa qora war anigu markaa subscribe-kii saaris fasax maa iga soo qaadadaade waxaa idhahday baraada subscribe kuu saaray ogow beri haddii waa kaa naqsanaa maa idhahday waa ku weydiistay waxaan ku dhahay subscribe ii saar janalka adoo mahadsan waa ii saartay ogaal la-aanaa iigu saartay anaa laakiin kaa codsaday aniguna iima aadan soo wargelin oo tiradaas anigu waa ogow ima dhihin markaad degsinaysidna hada la laabo xaqaa u leedaha adaa iskale subscribe-kaaga laakiin anaa ii soo wargelin oo ii dardaar warinine farta ku dhufoo la laabo maxaa iigu sheegay ani marka ninkan ii liicaato saaxiibay ahaayeen annaga dhanaa wada og mubaasharay ahayd meelay wada degnaayeen way wada noolaayeen waxbay wada qabsanaayeen bini aadankana marna waa heshiis marna waa dagaal marna waa isfahan marna waa isfaham daro labadan qofood way wada shaqaysteen waa dad walaalo ah waa dad isjecel kalama fogeynayno iskuma direeno waa laba qofood oo waqti wacan oo wanaagsan wada qaatay haddana way kala gaabsadeen sababaha ay ku kala gaabsadeenna ayagu unbaa garanaya annaga ma garan karno iyo ilaahay annagana abuurtay unbaa og quluubtooda iyo waxay isku qabteen raggan ay ku kala maqan yihiin
laakiin anagu waxaan u jeednaa shalay raggii wada shaqaysan jiray ee fideoyada wada duwan jiray in ay maanta labo dhinac kala yihiin oo qof walbo danihiisa uu asiga samaysto qof walbana xaqu u leeyahay inaa anagu faragashano waay ee sidaan u dhacday ma istaagi karno sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ay kala mowqif naqdeen oo shalay mabda'ii ka dhexeeyey wax isbedeleen waana dhici kartaa xaqayna u leeyihiin qofka bini'aadinka waa xor shakhsiyadiisa wax kasto oo qofka kaloo bini'aadin hadduusan waxu dhimaynin ama diinta islaamka waxu dhimaynin dee ma la faragashto laba qof markay xumaantooda inta soo fariistaan baraha bulshada kusoo faafiya markaasaa laga dhexgali karaa laakiin maanta anaga ma hayno lii caato iyo muniir inay dagaal cad isku muujiyeen ma hayno inay kala gaabsadeen un baan haynaa markay kala gaabsadeenna waa ku tixgelinaynaa inay kala hool yareysteen sababaha ayagaa naga og maaho laakiin two fucking bastard oo mar walbo u qoraayo dadka waxyaala aan wanaagsaneyn ayaa ninkan kasoo qaylisiiyey waxaan leeyahay muniir bulshaad wax la qaybsanaysaa inaad xaniinyeed yeelato ragnimadeedana yeelato ayaa loo baahan yahay waa ogahay inay xanuun badan tahay marmarka qaar waxyaalaha lagu soo qoraayo laakiin mar walba waxaa isku daydaa in aad two fucking oo dabada laga dhalay ay noloshaada micnaha hor istaagin danahaagana aad bursato guulaha aad nolosha ka rabtay waa ku sii socotaa wadadeeda hore u sii soco anigu intaad tale iga tahay sababtoo ah laba qof oo ayaga noloshood wax u qabsan waaye oo adiga kugu xiran oo adiga ku fiirsado ku daawada kuu daneeya lacag kuu sameeya inaad maanta intaa carab ay ku gaarsiiyaan wax xoogaa laga fiican yaha waaye waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid dadkaas inay nafsadoodii wax tari waayeen ee adigu taada wax tarooyin marka sidaa darteed waxaan ku leeyahay fideogan waa arkay anaa og inaad daawanaysidna anaa markhaati ka runtii waxaan ku leeyahay success guuleyso calm down isdeji bii qabow cab two fucking meel walbay joogaan ha u qabanin two fucking meel walbay joogaan ku qanac fiiri fideogaaga dhowr kun ayaa like saartay 400 camal ayaa waxay saartay dislike fiiri meeqo 400 iyo dhowr kun wax badana u dhexeeya ku qanac 400 oo unliked waxaa kaga qanacdaa dhowrka kun ee liketa kuu saarta dee waa laga badan yahay inta ku neceb maaho intaasaa muhiim ah haddii laakiin ay ka badan lahaayeen dislaagaaga iyo laagtaada markaas waa qeylin karta xaqa u leedaha laakiin hadda weli waa ka wadataa two fucking waxaan leeyahay ummadda jahawareerka ka daaya oo mar walba dhiigaa ku kicinina muniir maskiinka waa ka waaloosiin dejiya xaaladda fideoantaana kusoo gaban toni kulantiina dambena